hore dalka Turkiga recep tayyip ERDOGAN xilligan madaxweynaha dalkaasi ayaa intii uu soo hogaaminayay wadanka Turkiga waxa uu ka sameeyay isbedel horumarineed oo noociisa aan hore loo arag isbedelkaas oo saameeyay dhinacyo badan sida dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada si rasmi ah looga dareemay nolol maalmeedka dadka muwaadiniinta ah barnaamijka muddadii uu dalkaasi hogaaminayay guulaha oo dalka Turkiga ka dhigay wadamada ugu waaweyn ee adduunka dhaqaale ahaan iyo military ahaanba ERDOGAN waxa uu dugsiyada dawladda dib ugu socodiyay manhajka barashada quraanka kariimka ah oo bilaash laga dhigay taasoo sababtay in 90% ardaydu ay doortaan inay maadada bartaan dalka Turkiga oo kaalinta 111aad kaga jiray liiska quwadaha dhaqaalaha ee caalamka ayaa madaxweyne recep tayyip ERDOGAN waxa uu keenay safafka u horeeya oo ah kaalinta 16aad ee liiskaas oo uu haatan ku jiro kadib haykalkii dhaqaale ee uu dalkaasi u hirgeliyay madaxweyne ERDOGAN waxa uu taageero maaliyadeed la dhinac istaagay kordhinta taranka dadweynaha dalkaasi si uu u xaqiijiyo kor u qaadista tirada ay dhalinyaradu boqolkiiba ka tahay bulshada inteeda kale iyadoo xilligan tirada dadweynaha dalkaasi ay cagacagaynayso 80 milyan oo ruux muddo sanadaha gudahood waxaa dalkaasi laga dhisay 90 iskuul oo cusub in ka badan 500 oo cisbitaal iyo qiyaastii 170,000 oo fasal ama maqsin oo ah kuwa gaarka ah ee qaada 22 arday oo kaliya si loo damaanad qaado muhiimadda ay leedahay waxbarashadu ka hor intii aanu ERDOGAN xukunka dalkaasi qabanin dakhliga sanadlaha ee muwaadinka dalka u dhashay soo galaa waxa uu ahaan jiray $2,800 sanadkiiba laakiin inta uu xukunka hayay waxa uu gaarsiiyay wax ku dhow $12,000 waxaana u qorshaysan in marka la gaaro sanadka 2023 oo ku beegan boqol guuradii asaasidii jamhuuriyaddii Turkiga in dakhliga sanadkiiba soo gala qofka caadiga ah ee wadanka u dhashay inuu noqdo ilaa $30,000 iyadoo shaqo la'aanta oo ahaan jirtay 2% uu hoos u dhigay oo ay xilligan marayso 2% oo kaliya markii uu xisbiga cadaaladda iyo horumarinta uu hogaamiyo ERDOGAN la wareegay talada dalkaasi dakhliga ka soo noqda waxyaabaha uu dhoofiyo dalku waxay ahaan jirtay 23 bilyan oo dollarka Mareykanka laakiin isagoo ilaahay la kaashaday ERDOGAN waxa uu gaarsiiyay oo ay maanta maraysaa adduun dhaqaale oo gaadhaya 235 bilyan oo dollarka Mareykanka waa lacagta ka soo noqota waxyaabaha uu dhoofiyo dalka Turkiga madaxweyne ERDOGAN waxa uu dalka goboladiisa u kala diray ilaa 300,000 oo caalim oo ka hawlgelaya qorshaha higsiga baadhista cilmiyeed ee 2023 iyadoo baaritaanadii cilmiyeed ee hore ee uu dalkaasi ka furay ay suuragal ka dhigeen in Turkigu ay xilligan samaystaan hubka iyo saanada ay u baahan yihiin ciidamadooda qalabka sida iyadoo markii ugu horeysay dalkaasi uu soo saaray taangi kuwa dagaalka waxa kale oo markii ugu horeysay uu dalkaasi samaystay maraakiibta dagaalka ee yaryar ee dusha ka ilaaliya maraakiibta diyaaradaha xambaara waxaana lagu guuleystay in Turkigu ay soo saaraan diyaaradii ugu horeysay ee aan duuliyo wadin iyo dayax gacmeed dhanka militariga loo adeegsado waxa wax muuqda laga qabtay ilaalinta deegaanka iyo bii'adda iyadoo 10 sanadood gudahood la beeray ama la talaalay in ku dhow 3 bilyan oo geed 3 sanadood oo xiriir ah ayaa shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airways waxay ku guuleysatay kaalinta koowaad ee diyaaradaha rakaabka ah ee ugu wanaagsan qaaradda Yurub iyadoo madaarka caalamiga ee magaalada Istanbul ay maalin walba soo fadhiistaan qiyaastii in ku dhow 1,300 oo diyaaradood maalin walba dakhliga wax soo saarka gudaha ee dalka Turkiga ayaa sanadkii 2014 waxa uu ahaa 1 trilyan iyo 100 bilyan oo dollarka Mareykanka dakhliga oo u dhigmay sugeynta dakhliyada wax soo saarka gudaha ee 6 wadan oo ku yaala bariga dhexe kuwaas oo kala ah wadamada Iiraan, Sacuudiga, Imaaraadka, Urdun, Suuriya iyo Lubnaan iyadoo dalka Turkigu uu maalgashi ballaaran oo ganacsi ka samaystay dalalka soo koraya sida wadamada qaaradda Afrika sanadihii aynu soo dhaafnay ay dhibaatada dhaqaale ee caalamiga ka dhacday caalamka wadamada waaweyn ee reer galbeedku waxay kordhiyeen lacagaha waxbarashada ama fiiga loo yaqaano ee laga qaado ardayda jaamacadaha ku jirta laakiin taa beddelkeeda recep tayyip ERDOGAN waxa uu xilligaas soo saaray wareegto uu dhammaan iskuulaadka iyo jaamacadaha wadankaasi kaga dhigayo inay ardaydu bilaash wax kaga bartaan xukuumadduna ay ka bixin doonto kharashaadka fiiga madaxweyne ERDOGAN waxa uu sawirkii xafiisyada Suudaan jiray ee Mustafa Kemal Atatürk
وكوب الدلي صورك سلطانك عثمانيين محمد الفاتح مدحوينه أردوغان waxa uu wada hadal nabadeed la furay jimhada Kurdiyiinta ee hubeysan si loo joojiyo dhiigga qubanaya inkastoo aan jimhadaasi weli joojin hawlgallada ay kaga horjeedaan dalka Turkiga waxaana uu heshiis kala dhex dhigay labada dhinac jasiiradda Qubrus halka sidoo kalena uu jamhuuriyadda Armenia raaligelin ka siiyay falal military oo Turkigu ka fuliyay muddo 9 sanadood ka hor boqolkiiba 8 qoysaska wadankaasi ee magaalooyinka iyo tuulooyinka waxa la gaarsiiyay adeegga dabka leyrka markii laga faa'iideeyay mashruuca xashiishka lagaga dhalinayo tamarta leyrka loo baahan yahay kaasina waa recep tayyip erdogan oo inuu xaqiijiyay in qof gaar ah keligii uu bedeli karo mujtamaca intiisa kale oo